laakiin ujeedadoodu waxa weeyaan in Ethiopia ay baabiyaan oo ay wadanka ay ka dhigaan sida wadanada baaba'aysa Suuriya iyo Liibiya iyo wadanadaas inay ka dhigaan iyagoo cidad kale u adeegaya marka inaga ka Soomaali ahaan arrimahaasi sideebay inoo saameynayaan marka la ilaado dadka siyaabo kala duwan bay u eegayaan laakiin inaga waxa weeyaan Ethiopia haddii maanta ay dhibaato soo gaadho deegaanka ugu dhibaatada badan ay soo gaadhayso ayuu deegaankeenu noqonaya sababtoo deegaankeenu 30 sano ugu dambeeyay wax horumar oo laga sameeyay ma jiro wax dhaqaale uu leeyahay deegaanku ma jirto warshado ma leh maanta haddii Ethiopia ay dhibaato soo gaadho miisaaniyadda dawladdu ay istaagto wax mishaar oo shaqaalaha la siin 10 cisho ma siin karno caafimaad ma jirayo waxbarasho ma jirayso mar haddii saa tahay inaan Ethiopia markaasi aan ka shaqeyno sidii wadankaasi ay u sii socon lahaa wadanimadiisa u sii socon lahaa ayaa muhiim oo dadku inay taa fahmaan inagoo kaliya dhibaatada inama saameynayso geeska Afrika oo dhan bay saameynaysaa dadka Ethiopia 100 milyan haday qaxooti noqdaan East Africa oo dhan bay jiirayaan marka taas aynu u dhicin inaga marka danteenu maxay ku jirtaa inaan wadankaasi sidoo wadan ku sii ahaan la inaan ka shaqeyno weeyaan waxaana loo baahan yahay inaanu ciidanada kala duwan ciidanka inaanu ka qayb qaadano liyu booliskeenna inaan ku biirno xoojino si at least deegaankeena aanu xasilino